waxaana hay qoraa murtida qalan kala qaybiya qarba meel dhiga waxaana hay qoraa murtida qalan kala qaybiya qarba meel dhiga. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. ilaahay waa mahadle dadka dhammaan dhalinyarada iyo asxaabta iyo ururada wadanka Sweden waxay aad ii weydiinayaan buuggan aan qoray ee qabtire oo shalay magaalada Poland lagu soo bandhigay. su'aalo badan la iska weydiiyay muxuu yahay buuggan, maxaa ku keenay, maxaa ka keentay. runtii shalayna aadan u sharaxay. horta wax kastaba waxaa la yiraahdaa hooyada wax soo saarka waa baahida. waxaa buuggan baahi aan qabnay oo aniga ku itaabatay cabdiqani ahaan ana arkay inay ila qabaan walaalahayga dhammaan Sweden ku nool oo Soomaaliyeed ayaa horta ugu kalifay. marka ugu horeysay 2009 ayaan macahad lagu barto tarjumaanimadan galay oo ku yaala Stockholm. marka halkaas tagay waxaan wax la baranaynay dad badan oo sida Soomaali kaliya ahayn, dad asalkooda Ruushka ka yimid, waxaana la socday Ethiopia, waxa kamid ah Carab, wadamo nationalka fara badan. dadka kale waxay haysteen qaamuusyo cilmiyeed ay isticmaali karaan oo aad u fiican oo kelmadda maaragtay terminology-ga cilmiga ayada aan qaamuus caadi laga heli karin, qaamuusyo loo habeeyay haysteen. waxay marka aad uga faa'iideysan kareen inay kelmadda si fudud u helaan. anaga dadkeena Soomaalida waxaan ugu dhacday runtii kelmaddan maxaa la yiraahdaa, tan maxaa Soomaali lagu yiraahdaa, yaa yaqaan, qofkan weydii inaan anaga aqoon inaan wax qiyaasnay noqoto. waxaan ogaaday inaan aasaas jirin wadankan turjumaanada haysta shahaadada wanaagsan ee la yiraahdo actor tolk 10 qofood oo Soomaaliya waxay qaadateen 12 sano ka hor kabacdi cid qaadata waa la waayay. dadka dhan markay imtixaanada galaan waxay ku soo dhacaan erayada terminology-ga lagu soo ridaa. waxaan aqaanaa dad badan oo competent ah oo koorsooyin wada dhiganay, aqoon fiican labada luqadood u leh. hay'addu waxay iska keenaysaa qof qiimeyn ku sameynaa dadkii wuxuu leeyahay kelmaddan sax uma yidhaaheen qofkan. qofka asagoo imtixaanka kale ku soo bara aqoontiisa perfect ay tahay kelmadii Soomaaliga waxaa leeyahay qalad oo turjunta. waxaan isku dayay marka inaan helno buug aasaas ah marka ugu horeeyay oo turjumaanadu isticmaalaan ka bacdina la weynayo la ballaariyo kaasoo markaas haddii la isqabsado ama Soomaalida marka imtixaanada la qaadayo ama waxbarashada la galayana kaalmo laga dhigto. runtii waxaan ugu talagalay inay gacanta ku qabsato qofka turjumaanka. sida caadiga qaamuusyada cilmiga waxaa laga dhigaa oo nooc sida waxaan ula jeedaa caafimaadka oo kale in la siiyo terminology oo caafimaadka kaliya buug ah ama xagga sharciyada oo kale la siiyo. laakiin aniga waxaan fiiriyay baahida aan qabno markaan wadankan nimid waxaan u baahanahay waxaan la xiriirnay hay'ado badan. migration-ka qofka marka ugu horeeyo ka soo dhaca dabadeed wuxuu la xiriiraa marka sharciga la siiyo kale social-ka la xiriiraa wuxuu la xiriiraa hay'adda maaragtay iskaadka oo iska diiwaan geliya, xafiiska shaqada uu tagaa, suuqa shaqada uu aadaa, qofka dambiyo galaa oo waa loo yeeraa ama isaga laga galaa oo booliska iyo qareenada iyo maxkamadihii uu tagaa. qofku waa xanuunsanaya ama canuga ka xanuunsanaya ama xaaska ka xanuunsanaya ama odagiyo dhakhtarka uu tagaya. dhibaato badan mararka qaarkood waxaa arkay shaqada dhexe gabar ku umushay isbitaalka kowda habeenimo in dhiig la'aan ku dhacdo oo la yiraahdo waxa u baahatay in dhiig lagu shubo oo kelmadda blue transfusion gabadha in la fahamsiiyo ay ku adkaato dhakhtarka xilligaasna uusan turjubaan helayn. marka waxaan ugu talagalay goobaha caafimaadka in la dhigo, iskuulada la dhigo. kulley waxaa laga heli doonaa maaragtay meelo badan. baahidaas horta ugu kaliftay saasaan uga duulay. runtii shalasaan u sharaxay waxaan ka soo qaatay qaamuusyada cilmiga maaragtay ama caafimaadka ama sharciyada inta badan ama se buugaagta loogu talagalay oo lagu barto turjubaaninka. waxaa kaloo ka soo qaatay qaamuus afeedyada sidii af Soomaaliga oo runtii luqad aad qani u ah oo eray bixinta runtii aysan aad Soomaalida aysan u dhibin maadaama ay dad luqawiin oo luqad ballaaran la yihiin. buuggu marka wuxuu مثلا qaybta caafimaadka oo kale waxaan u qoray horta si fudud oo qofku ka faa'iideysan karo. caafimaadka gabar kalkaalisa caafimaad oo umulsa ah ayaa waxay iga codsatay inaan cudurrada oo kale gooni u saaro. waxaa cajiib buuggaas waxa ugu dhaliyay oo inaan qoray ugu kalifay gabar Swedish ah oo la yiraahdo Sofia oo isbitaal ku yaala Poland BBC Khotishka ama kalkaalisa caafimaad carruurta koritaankooda la socoto. af Soomaaliga xoogaa barbaratay gabar baa u imaanaysa canuga cambaara ka haysa ma rabto inay aydi waxay rabtaa barato
أنا يودينا عم تقنع عمبار محل وياه ما هي كرا حاجة يقولي كتا ما أنت عمبار في الصومال يقولي كتا إكسام يعني إذا أقول لي وحيد تركب الصومال ده ودت في عن وددالة لكن أريبحنتان كم سوق اسم فيها حتى كم هي كرا مركب مقصة ما يكرتا رونت وح عجيب إنه قف كلا دريا ما باهذين أو نجو أو مارتي أو أنا مارتي نجو يرجلي إنا وحكة قبلنا قيبتاس مركب وحنا كدقي عذور هذا وكلا الصومال سويدشان كدقي سيد قفكي oo u dhihi kara dhakhtarka markuu tago baabasiir inuu hayo malaynaa meega baxlayga baabasiir uu yaqaan dhanka kale qofka halkan ku koray oo ama caafimaad ka shaqeynayo kale marka qof patient uu luqadiisa ku hadlaa Soomaali u yimaado oo dhihi kariyo waxa ku haya saas oo kale kana ku haya waxaan uga dhigay ayagana Swedish Soomaali ka bacdi kelmadaha caadiga ee sida alfabetadu isugu xigto kale aatil oo ayaan eray bixinta waxaan markaa uu noo suurta galan soo galiyay qaybta labaad ee gadaale markaan dhameeyay waxaan uga daraa caafimaadka ilkaha kale سيكوني أسيجنا صوته دكتورك تانفورد مركلي خوكفورد وده كان حاجة وكل بحثين قيبتا مارتي وحنكو حدي شرعيها أيضا وإلى بحن عادي آتل أو وحكو حاجة قيبتا أريناها برشة أيضا نسيدا صوت وحكو حاجة عندي لحوي قيبتا مارتي حفيز كشغلة أنا وطلق الجوني ما دام أي شغله آد مهم وطه يجي وحن سمي قيب ألف بيت هذه هي قيب تنبو أنا بحي إركس الليستا أما سد ديوان كمهنا ذا qofku waxa laga yaabaa krishbooyin ahaan jira Soomaaliya hadaba ka fuul ahaan jira saqeeyana mid la yiraahdo midna krishbooyin la yiraahdo qalad ka dhici kara sababta ismaacilaas marka inuu qofku dhihi karo engineer aan ahay dhakhtar aan ahay kalkaaliso caafimaad aan ahay ama aan rabaa had inaan barto qaybtaas aan u sameeyay ilaa 120 mihnadood inta badan ay bani aadam ka shaqeystaan qaybtii arrimaha bulshada ku xigta qaybta ugu dambeeyana waa qaybta migration-ka runtii aad iyo aad dad aqoon fiican afka Soomaaliga iyo afka Swedish-ka oo macallimiin ahna waxbay maaragtay ka ay ka saxitaankiisa ka qayb qaateen waxaan rajaynayaa in aad iyo aad u mufiid u noqdo ummadda 90,000 oo Soomaalida ee Sweden ku nool ay ka faa'iideystaan waxaan ballan qaadaa insha Allah inaan sii ballaariyo wixii turxaan bixina aan sameeyo sanad walba ama labadii sanada hadda waxa qaybtii addition ka koobaad ama se first oblagana soo saarna ama taabacada koobaad si labaadaan rajaynaa insha Allah sanadka bacdi wana si balari doona insha Allah waxaan rajaynayaa in aad iyo aad Soomaalidu uga faa'iideysato waddanka Sweden oo uu noqon doono aasaas wanaagsan waxaan ahay qurar qurigii tibliye erigii qariban ka qablahay maqalo iyo aniga qofra وحنا هاي قرار قريقي تبلي ألقي قريبا كان قبل حي مقلوعي أنيقا قد قرار